Dowladda Soomaaliya maxay ku bedelanaysaa jaridda dhirta iyo shididda dhuxusha? Dadka ku tiirsan shididda dhuxusha ayaa ah dad u badan beero qodato iyo xoolo dhaqato, kuwaas oo xilligan ay ka laadeen xoolihii isla markaana ay roobab u waayeen beerihii ay ku tiirsanaayeen muddada fog. Inkastoo ay tahay xaalad rabbaani ah, haddana dowladdoodu kama aysan helin waxqabad cad oo lagu gudbinayo xaaladaha nololeed ee ku geedaaman. Taasi waxaa u sii dheer amarro kaga yimaada dowladda oo ah inaysan geedaha ka samayn karin dhuxul, arrin lagu tilmaamay ha noolaan hana dhiman ay ku sheegeen dadka wax ka qora xaaladaha siyaasadda Soomaaliya iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka. Dhowaan maamulka Jubbaland ayaa mamnuucay jaridda dhirta iyo shididda dhuxusha si loo ilaaliyo waxa ay ku sheegeen deegaanka oo loola jeedo ilaalinta deegaanka. Waxa ay noqotay arrin fajac ah in bulshada duruufaysan ee ay abaaruhu baahan la daaladhacayaan in laga hor istaago geedihii abaaraha ka haray ee ay noloshooda iyo tan qoyskooduba ay ku maarayn lahaayeen. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inay gaareen deegaanno ka baxsan magaalada Kismaayo, iyaga oo ku amray laamaha amniga in tallaabo adag ay ka qaadaan dadka dhirta guba isla markaana ka sameeya dhuxusha. Mas-uuliyiintan ayaa booqday deegaanno kala duwan oo ku yaalla duleedka Kismaayo, halkaasi oo maalmihii u dambeeyey laga soo sheegayey dadka deegaankaasi oo kolkii ay abaartu sida baahan u saamaysay ka doorbiday shididda dhuxusha kolkii ay baahidu ka badatay, misena iminka wajahaya cagajuglayn iyo xarig halkii laga wardooni lahaa sida ay u nool yihiin iyo sababta ku kallifayso in ay xaalufiyaan deegaanka. Gobolka Jubbada Hoose ayaa kaalimaha hore kaga jira meelaha ay dhibaatada badan laga soo sheegayo inay ku yeesheen abaaraha baahan ee dalka ku dhuftay, isla markaana dadka qaarkii ay ka carareen deegaanadii ay ku dhaqnaayeen kolkii uu farahoodu ka baxay wixii maal ah ee ay haysteen, iyadoo maalin weliba dekedda Muqdisho laga dhoofiyo dhuxusha isla markaana laga keeno gobollada dalka, taasi oo ay dowladda Soomaaliya ka samayso lacago badan oo canshuura. Haddana waxaa jira shakhsiyaad siyaasiyiin u badan kuwaasi oo dhuxusha iyo jaridda geedaha ka sameeya lacago aad u badan, balse dowladdu aysan ka warqabin. Haddaba muxuu noqon doonaa qorshaha ay dowladda Soomaaliya bulshada reer miyiga ah uga beddelan doonto ilaalinta deegaanka, iyadoo ay bulshada ku qasban yihiin in si ay noloshooda u maareeyaan ay sameeyaan jaridda dhirta iyo xaalufinta deegaanka? Balse dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha maamul goboleedyada looga baahan yahay in ay la yimaadaan qorshooyin ay ku ilaalinayaan deegaanka, isla markaana ay bulshada uga warqabayaan. Ilaa iyo dhammaadka haddii aad la soo gaartay, sharaf ayay inoo tahay. Fadlan sii gudbi muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada. Beejkan laag iyo follow ku riix, waxay inoo tahay dhiirigelin iyo mid ka mid a yoolalkeenna. Haddii aad intaasi noo samaysay, aad u mahadsan tahay.